soo dhawaada jaalaya Nico wuxuu u safray Thailand si uu muuqaalkan u soo sameeyo marka la joogo Bangkok bajaajta meesha ugu fog ee aadi karto waa 500 mitir Nico wuxuu rabaa inuu 24 saac saarnaado waliba isagoo wadanka ku soo wareegayo marka uu isku dayo inuu la hadlo bajaajlahan mid kale ayaa ka soo dhaxgalaya waana darawalka qaybta ka noqon doona muuqaalkan wuxuu ku dhahaa ma taqaana AJ Nico wuu la yaabaa darawalkan wuxuu u sheegaa inuu bil ka hor la kulmay AJ uuna la sameeyay muuqaal noocan ah markuu sawir ka tuso wuxuu ku dhahaa waxaan rabaa inaan wadanka ku soo wareego 24 saac gaari ayaan haystaa markuu ku dhahaana bajaaj inuu rabo ayuu u sheegaa waxayna ku heshiiyaan inuu iska bixiyo 50,000 oo lacagta Thailand ah dollar ahaan u dhiganta lacag ka badan $1,000 inta ay safrayaan waxay sameynayaan challenges yaryar midka koowaad waa inay isku dhar soo qaataan sidaas darteed laba funaanad oo isku mid ah ay soo qaataan sidaas ayayna safarkooda ku bilaabaan markay xoogaa jaamaha galaan Nico wuxuu isku dayaa inuu challenge labaad fuliyo kaas oo ah inuu qof ku qanciyo inuu la raaco bajaajtan uu soo kireystay dhowr qof ayaa ka diiday muddo ayuuna isku dayay kadib ninkan ayaa ka aqbalay intay wadada ku sii jireen wuxuu ka bartaa erayo ka mid ah luuqadooda meeshuu rabay markii la soo gaarayna wuu ka degaa kadibna meel garaash ayuu istaajiyay si uu mootada ugu xirto nolol markay 200 kiiloomitir socdeen waxay mootada ku shubtaan shidaal si ay socdaalkan u sii wataan dhalinyartan waxay ku qanciyaan inuu suuqan ka heli karo wuxuu u baahdo Nico wuxuu ka soo iibsadaa sameecad markuu bajaajka ku soo laabtayna hees ayuu ku daartaa waxayna markan Bangkok ka soo fogaadeen 300 kiiloomitir goobtan ay hadda ku sugan yihiin bajaaj lagama aqoon sidaas darteed booliska ayaa qabtay ugu dambeynna waa loo ogolaaday inay sii socdaan 40 kiiloomitir kadibna Nico wuxuu buukintaa hotel si ay habeenkaas u seexdaan intaysan tagin hotelka waxay tagaan maqaaxi si ay uga casheeyaan markii casheeyaana Nico video call ayuu ku wacaa AJ si uu u tuso qofka la socda AJ markuu arkayna wuxuu la yaabaa sida isku heleen kadibna waxay soo aadaan hotelka wuxuuna u sheegaa inuu qof walba uu qol gaar ah seexan doono subaxdana inay barkadan ku dabaalan doonaan ayuu u sheegaa qolkiisa ayuuna soo tusaa kadibna way ka soo tagaan subaxii markay soo kacaan waxay ku dabaashaan barkada dabaasha iyagoo tartamo isku xujeysanaya challenge-yada ayayna qayb ka ahayd midaas kadib haweeney ayaa ku soo baxaysa kuna dhahaysa waa subax hore caruur ayaana ii jiifta Nico wuu ka raali geliyaa ugu dambeynna waxay dib u soo xirtaan dharkii isku ekaa si ay safarkooda u sii wataan intay socdeen wuxuu ku dhahaa meel daanyaro ay joogaan ma taqaana ha ayuuna ku dhahay darawalka 20 kiiloomitir ayayna noo jirtaa Nico inuu meeshaas marsiyo ayuu ka codsaday markay yimaadeenna waxay meesha ku arkeen daanyeer sababta uu u doortayna waxay tahay in challenge-yada uu sameynayo ay qayb ka tahay inuu xayawaano cunno siiyo markuu cabaar wax siiyay wuxuu rabay inuu sawir la galo si lama filaan ah ayuu daanyeerkii ugu soo booday markii hore wuu ka cabsaday balse mar labaad ayuu u laabtay kadibna safarkoodii ayay dib ugu laabteen markay 400 kiiloomitir gaareen Nico wuxuu soo iibiyaa cunno iyo koofiyado si isaga iyo darawalka iskula xirtaan meesha xigta ay tagi doonaana waa markabka wuxuuna u jiraa 3 saac ilaa 4 saac waana ku dhawaad 300 kiiloomitir markay daalaan wax yar way nastaan haddana dib ayay ugu laabtaan nasiib xumase shidaalka ayaa ku yar meeshana way ka waayeen waxayna bilaabeen inay raadiyaan meel ay shidaal uga shubtaan 48 kiiloomitir ayaa u harsan shidaal 20 kiiloomitir ay ku tagi karaan ayayna haystaan intay socdeen waxay arkeen goob shidaal lagu iibiyo aad ayay ugu farxeen balse mootada ay wataan shidaal kuma shubi karaan darawalka wuxuu wacday asxaabtiisa si ay shidaal ugu soo qaadaan 20 daqiiqo kadibna safarkooda ayay dib u bilaabeen 15 daqiiqo iyadoo ay u harsan tahay ayay soo gaareen meesha markabka laga raaco waana markii ugu horeysay ee markabkan la saaro bajaaj intaysan gudbin waxay u baahdeen ticket waqtiga oo kulaalaya awgeed waxay markan soo gaareen markabkii gudaha ayna u galeen waxayna 24 saac ku soo jareen 800 kiiloomitir markay soo gaareen jasiiradda Koh Samui Nico wuxuu sameeyaa challenge-ga ugu dambeeya ee u harsanaa waana inuu bajaajta kaxeeyo wuuna sameeyay kadibna waxay imaadeen hotel si uu darawalka u siiyo lacagta wuxuuna siiyay 2 jibaar lacagtii ay ku heshiiyeen darawalkana isla markii dib ayuu u laabanayaa maadaama magaaladiisa shaqooyin looga soo wacay fadlan haddii muuqaalkan aad ka heshay like noo saar mahadsanid jaalle